الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد waxaan ka soo sheekaynaynay nebi muuse calayhi salaam iyo fircoon qisadii dhex martay waxaan ka soo baxnay oo noogu soo dambaysay nebi muuse calayhi salaam in ilaahay badbaadiyey lana halaagay fircoon oo ilaahay badda uu ku qarqiyey ama ku maasheeyey subxaana wa tacaala intaa wixii ka dambeeyey reer bani israa'iil markii ay ka soo badbaadeen oo ilaahay ka soo najiyey baxarkana ay arkeen qoom ictikaafsan oo ku nag asnaam ay leeyihiin intaa ka gadaalna ay dhaheen muusow noo sameey ilaahyo sida ay kuwaan ilaahyo u leeyihiin oo kale kabacdina muuse wuxuu yidhi waxaad tihiin qoom jaahiliin ah kuwaan qoom la halaagaya waayo waxyaabaha ay sameeyeen ayaa baatil ahaaday ilaahay kayrkiisa miyaad xukun iyo rabbinimo ka dalbaysaan asagana uu yahay kii idinka badbaadiyey fircoon iyo camalkii xumaa uu idinku samaynayey intaa ka gadaal reer bani israa'iil waxay ku soo noqdeen ama ay ku soo laabteen ilaahayna uu dhaxal siiyey maqaamkii iyo kunuustii ay lahaayeen reer qibtiyiin ama reer fircoon reer bani israa'iil waxay ahaayeen dad aad iyo aad u dhib badan ayay noqdeen intaa ka gadaal sida maanta qisada aan ku arki doonno waxaad ka fahmaysaa rasuulka markii la dheelmiyey sala allahu calayhi wasalam samaawaadkana la saaray waxa uu la kulmay nebi muuse calayhi salaam nebi muuse markuu salaamay uu gudbay kabacdi ayuu nebi muuse ooyey calayhi salaam markii la weydiiyey waxyaabaha uu ka ooyeyna wuxuu yidhi waa nebi ilaah soo bixiyey subxaana wa tacaala muxamed ummaddiisa inta jannada ka gelaysana in ka badan kuwayga ayaa kuwiisa markaa ka gelaya nebiga markii kor uu sii aado salaadaha loo soo dhiibay oo uu soo noqday oo nebi muuse uu soo maray nebi muuse wuxuu yidhi meeqa salaadood ayaa laguu soo dhiibay rasuulkuna wuxuu yidhi 50 salaadood ayuu ilaah igu soo waajib yeelay nebi muuse wuxuu yidhi waxaan la dhaqmay oon ku dhexdhehmay oo aan ogaaday oon u kuurgalay reer bani israa'iil aad iyo aad ayay ahaayeen dad u dhibaato badan ummadaadu way ka daciifsan yihiin ma u adkaysan karaane takhfiif weydiiso ilaahaaga subxaana wa tacaala ilaa markii dambe 50 salaadood laga soo reebay 5 salaadood marka reer bani israa'iil waan ogaan doonaayo dad noocaasoo aad aad u dhibaato badan ayay ahaayeen nebigoodii muuse ahaana waa dhibeen ilaahay ayaa yidhi subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa takunuu kaaladiina aadaw muusa war dadka iimaanka laga helay oo ilaahay rumeeyey oo ummatu muxamedka ahow ha dhibina nebigiina sidii ay u dhibeen reer bani israa'iil ama muuse qoomkiisa yaa ayuha aladiina aamanuu laa takunuu kaaladiina aadaw muusa kuwii nebi muuse dhibay oo kale ha noqonina ilaahay ayaa ka beri yeelay subxaana wa tacaala aayaddaasi waxay tilmaamaysaa nebi muuse wuxuu ahaan jiray baa la yidhi rajul istaxyi iyo sariig badan reer bani israa'iil waxay ahaayeen kuwo aan sariig lahayn wayna wada qubaysan jireen ayagoo caariyaad ahoo qaaqaawan nebi muuse waa ka dhuuman jiray oo meel qalwo ah oo gees ah oo soocan ayuu geli jiray maalin maalmaha ka mid ah ayagoo sidaa xaaladoodu ay tahay oo nebi muuse keligii uu iska qubaysanaayo ayaa reer bani israa'iil waxay dhaheen muuse waxyaabaha ku kalifaya inuuna soo dhex galo ama u diidan soo dhexgelitaankeena cudur ayuu qabaa weliba cudurka sheelada la yidhaahdo ayuu qabaa saasay markaa yidhaahdeen nebi muuse oo qabardaar ah ayaa maalintii galay meeshii uu ku qubaysanayey maradiisa ayuu iska qaaday wuxuuna saartay dhagax korkiisa waa qubaystay markuu qubayskiisii dhammaystay uu rabo inuu maradiisa qaato ayaa maradii dhagaxii saarneed ayaa sida shimbirta oo kale ay ula soo haaday sida shimbirta oo kale ula soo haaday nebi muuse asagoo qaawan ayuu ka soo daba orday ushiisana gacanta uu ku wato uu leeyahay yaa xajar thawbii ama thawbii yaa xajar maradayda isii dhagaxow maradayda isii asagoo dhahaya oo qaawan ayuu ka soo daba orday ilaa dhagaxiisuu u soo socday uu soo dhex galay mala ama jameeca reer bani israa'iil ah dhexdooda
saasay u soo fiiriyeen markaasay dhaheen wallaahi muuse wax wajaca ama xanuuna ama balaayo uu qaba ma jiro. maradiisa ayuu ka qaatay, dhowr uloodna waa ku dhuftay ayaa la yidhi sida axaadiistu ay tilmaameen nebi muuse calayhi salaam, ilaa dhagaxii raad markaa uu yeeshay. intaa wixii ka dambeeya ilaah subxaanahu wa tacaala nebi muuse wuxuu siinayaa kitaabka tawraad ayaa la siinayaa. ilaahay wuxuu yidhi waan siinay nebi muuse kitaabkii tawraad min bacdi maa ahlakna alquruuni aluulaa, markaan halaagnay quruuntii hore kadib. leannahu mar allaala marka kitaabkaa la siinaayey ma ahayn fircoon oo nool. fircoon markii la halaagay ka gadaal ayuu ilaahay la ballamay subxaanahu wa tacaala nebi muuse inuu yimaado jabalu tuur oo markaa kitaabka la soo siiyo. kitaabka in la soo siiya ayaa markaa lagula ballamay oo ilaahay uu kula ballamay subxaanahu wa tacaala. nebi muuse waa soo baxay oo wuxuu yimid makaankii ilaahay uu kula hadli lahaa. markii goobta iyo meesha ilaahay uu kula hadli lahaa uu yimid ayaa ilaahay wuxuu u ballan qaaday inuu kitaabkaa siiyo subxaanahu wa tacaala. weliba ilaahay kitaabkiisa munazalkaa waxa uu ku yidhi waa la ballanay nebi muuse 30 layla 30 habeen wa atmamnaahaa b10 10na markaa waa ugu darnay. culimada mufasiriinta gobol ayaa waxay yidhaahdeen markii lala ballamayay 30kaa maalmood waxay ahayd bisha dilqacda. 30ka bisha dulqacda ayaa markaa lala ballamay. qole waxay yidhaahdeen waxaa la amray in markaa inuu soo soomo. markii ugu dambayso ballantii ay dhammaato meeshii uu yimid ayuu nebi muuse soo rumaystay. meesha markuu yimid ka gadaal ayuu ilaahay la dagaalay subxaanahu wa tacaala oo uu yidhi waxaan jeclahay ninka saa'imkaa afkiisa waxyaabaha ka soo baxee maxaad markaa u soo rumaysatay wa atmamnaahaa b10 markaasaan 10 haddana ugu dhammaystirnay. fatama miiqaatu rabbigiis miiqaadkii ballantii uu la lahaana waxay ku taab noqotay 40 layla 40 habeen buu dhahay ilaa subxaanahu wa tacaala. waxaa suuragala in loo soo celiyey ayaa la yidhi bacdamaa 30kii dulqacda uu soomay in 10ka dulxaj ugu horaysana markaa uu soo soomo bacdamaa fadaa'il fara badan ay markaa ku jirto. xaqiiqda ilaahay ayaa yaqaana say xaaladda noqotaba. mar allaala markii mawcidkii la gaaray ayuu nebi muuse goobtii loogu talagalay markaa yimid. goobtii loogu talagalay ayuu yimid nebi muuse calayhi salaam. waxa uuna la dardaarmay walaalkiis haaruun inuu usii qaliib noqdo oo qoomka markaa uu usii celiyo, inuu fasahaadkii waxyaabaha ka ilaaliyo. arrintaas ayuu u dardaarmay nebi muuse walaalkii haaruun. wuxuu yidhi walaalkayow khaliif iiga noqo qoomkayga, dadka mufsidiintaa jidkoodana ha raacin. nebi muuse waa soo baxay oo wuxuu yimid goobtii ilaah uu kula ballamay subxaanahu wa tacaala. waxaa la soo siiyey kitaabkii tawraad intaan la siinin ka hor nebi muuse calayhi salaam mar allaala markuu dhegaystay ilaahay qowlkiisa iyo kalaamkiisa aad iyo aad ayuu ula dhacay. waa jeclaystay bacdamaa kalaamka macaanta badan uu aad iyo aad ugu riyaaqay ayuu jeclaaday ayaa la yidhi axadka hadlaaya inuu markaa arko oo ilaahay ah subxaanahu wa tacaala. ilaahay subxaanahu wa tacaala asagoo kitaabkiisa ku tilmaamaya wuxuu yidhi nebi muuse mar allaala markuu goobtii yimid oo rabbigiina la warramay ayuu yidhi rabbi arinii ilayk, ilaahayow iska kay tusi. ilaahayow waxaan rabaa inaan ku arkee iska kay tusi. sidaa ayuu yidhi nebi muuse calayhi salaam. ilaahay wuxuu yidhi arki maysid walaakin indur ila aljabal, buurtaas fiiri ayuu yidhi ila subxaanahu wa tacaala. fain istaqara makaanah, haddii buurta makaankeeda iyo booskeeda ay ku sugnaato adigana waad i arki doontaa. ilaahay wuxuu rabay subxaanahu wa tacaala in buurta asaga uu istusiyo, ka gadaalna nebi muuse buurtii ilaahay la tusiyey uu fiiriyo. hadduu xamilo oo arrinta uu adkaysto ilaahay wuu arki karaa subxaanahu wa tacaala. hadduu u adkaysan waayana mid xamili karaa markaa ma aha. sidaa darteed ayuu ilaahay yidhi falammaa tajallaa rabbahu liljabal, ilaahay ama rabbigiisa mar allaala markuu isku fayday jabashii, nebi muusena jabashii uu fiirinaayo. nebi muuse waa adkaysan waaye subxaanahu wa tacaala.
fakhara muusa saciqaa. nebi muuse macnaa in mar allaala markii buurtii loo fayday ilaahay oo arrintii laisku caddeeyey, dabalkii ama jabashii waxay noqotay mid deke ah oo burbur ah oo bacaad oo kale markaa ah. nebi muuse oo jabashii fiirinaya xaaladeedii sidaa noqotay, fakhara muusa saciqaa. nebi muusena waa dhacay calayhi salaam asagoo miir daboolan, ayuu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. mar allaala markuu soo afaaqay uu miirkiisii helay ayuu yidhi ilaahayow waa kuu tawba keenay, ilaahayow waa kuu soo rujuucay, ilaahayow maanta wixii ka dambeeya aniga muslimiinta ayaan ka mid ahay. intaa ka bacdi ayuu ilaahay yidhi yaa muusa ini istafaytuka cala annaasi birisaalaatii wa bikalaamii. muusow aniga dadka dushooda ayaan kaa doortay, risaaladayda ayaan kuu doortay, kalaamkayga iyo inaan kula hadla ayaan kuu doortay. waayo wakallama allahu muusa takliima. ilaahay nebi muuse waa la warramitaan cad ayuu ula hadlay subxaana wa tacaala. intaa ka gadaal nebi muuse waxaa la yidhi muusow iska ilaali, maanta wixii ka dambaysa ani waa ku doortay cala annaas, dadka korkooda ayaan kaaga doortay birisaalaatii, risaalaadkayga iyo kalaamkayga. fakhud maa aataytuka, waxa aan ku siinaya qaado oo wakun min ashaakiriin, dadka shaakiriintaa ka mid noqo. ani igu shukri buu dhahay ilaah subxaana wa tacaala. alwaaxdii kitaabkii towraad ugu qornaa ayaa la soo siiyey nebi muuse calayhi salaam. nasiib wanaag in allaala intii uu ku soo maqnaa oo meesha uu joogay oo cariddiisu ay sidaa ahayd uu ilaahay kitaabkaas siinaayey, ayaa waxaa dhacday nin saamiri la yidhaahdo inuu qoomkii baadiyeeyey ama markaa uu dhumiyey. qoomkaa waxa uu ku dhumiyey sida ilaahay tilmaamaya subxaana wa tacaala, dibi shay sansaan dibi oo kala leh ayuu u soo bixiyey. ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala nebi muuse mar allaala markii uu soo baxay oo goobteenii iyo meeshii aan kula soo ballannay uu markaa yimid, ayaa waxaa dhacday in ilaah subxaana wa tacaala xaaladdaa uu kala hadlay nebi muuse. waata ilaahay uu yidhi wamaa acjalaka can qawmika yaa muusa. nebi muuse qoomkaaga maxaa kaa soo dedejiyey? markaasuu yidhi hum ulaaya calaa athari wacajiltu ilayka rabbi litardaa. ilaahayow waxaan u soo degdegay aniga raadli ahaashadaada ayaan rabaa, qadabkaaga iyo xanaaqaaga ayaan kaa magangelaa. ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala qoomkaagii waan fidnaynay gadaasha, wa adallahum saamiri ninka la dhaho ayaa fidneeyey. wuxuu u soo bixiyey ayaa la yidhi cijlan jasadan, shay hanaan dibi ah leh oo jasad markaa ah. markaasuu yidhi haadaa ilaahukum, midkaan ilaahiinii waaye. nebi muuse ilaahiisii waaye, fanasiya, nebi muuse waa iloobay. weliba geedkaa waxa uu ka sameeyey ayaa la yidhi aahaartii rasuulka waa jibriile. mar allaala marka uu soo degaayo waxyaabaha faraskiisii waxyaabaha ka soo baxa iyo xulligii iyo quruxdii ay dadkii ka dhaxleen waa reer qibtiye intuu isku dardaray ayaa wuxuu ka sameeyey dibi khubaar leh. khubaarku waa cod oo waa codaynayey. markaasuu yidhi haadaa ilaahukum wa ilaahu muusa fanasiya, midkaan waa ilaahi muuse, jeebkuu ugu jiray waa ka dhacay, waa iloobay ee markaa caabuda. haaruun ayaa qoomkii la hadlay oo yidhi qoomkeeyo waa laydin fidneeye, waxaan iska dhaafa, rabbigiin waa allaha raxmaanka ah. war arki maysaan miyaa dibigaan inuusan wax maqlayn wax arkayn, qowl uusan idiin soo celinaynin? ayaguna waxay dhaheen anagu ka zuuli mayna inaan caakifiin ku nahay oo aan ku negnahay ilaa uu noo soo noqdo muuse calayhi salaam. xataa yarjica ilaynaa muusa, ilaa xaggeena muuse uu u soo noqdo anagu ka suuli mayna inaan haysanayno oo midkaan aan ku dheganaanayno. xaaladdu markay meeshaa maraysay nebi muuse waa soo noqday calayhi salaam. farajaca muusa ilaa qawmihi qadbaanan asifaa, asagoo xanaaqsan oo murugyo iyo tiraayo ay ka muuqata ayuu soo noqday. aayadaha gale waxay tilmaameen nebi muuse mar allaala markuu soo noqday wa alqa alwaaxdii uu watay iyo kutubtii towraad ayuu tuuray. wa aqada bira'si akhiih, waxa uu soo qabtay walaalkii madaxiisa, waa soo jiiday oo xaggiisa ayuu markaa u soo jiiday. aayadaha gobol waxay tilmaameen inuu garka ka qabtay uu markaa xaggiisa u soo jiiday, asagoo aad u canaananaya walaalkii haaruun ah oo dhahaya maxaa kuu diiday inaad qowlkayga yeesho? maxaad ii caasisay? maxaa dhacay oo dadka aad uga celin weysay baadida? maxaad dadka u wacdin weysay haaruunow? sidaa ayuu yidhi, aad iyo aad ayuu ula dagaalay nebi muuse walaalkii haaruun.
haaruun wuxuu yidhi yabna wiilka isku hooyaha aan nahayow laa ta'khud bilixyatii walaa bira'sii madaxayga iyo garkayga ha qabanin waayo anigu waa cabsaday waxaan ka cabsaday inaad qowlkayga sugi weysood hadhow idhahda waxaad kala geegaysay reer bani israa'iil anigu waa la hadlay wax kastana waa u sheegay sida xaqa uu yahay waa u tilmaamay laakiin waa iga diideen walaalkayow ha igu xadgudbin hana ildagaalin waayo anigu nin fiican oo taacada alla ku taagan ayaan ahay ninkan saamiri waayo ninka markaa wax baadeeyey oo wax baadiyeeyey oo arrintaa lagu fidnoobay markaa keenay muuse wuxuu u soo jeestay ninkii saamiri ahaa oo arrintaa sameeyey oo dibiga yidhi caabuda dibigan ayaa ilaah idiin ah waa ilaahii muuse waa ilaahiina asaga qaata sidaa saamirigii markaa yidhi ayuu u soo jeestay uu yidhi maa khadbuka yaa saamiriyu saamiriyow xaaladaadu maxay tahay saamiri wuxuu yidhi anigu wax ayagu aysan samayn ayaan sameeyey waxaan soo cantoobsaday catoobadii aahaartii rasuulka ah arrintaa ayaan sameeyey ku shiday dib wuxuu ka soo saaray dibi intaa ka gadaal ayaan idhi buu dhahay arrintaa sameeya asagana waxaa lagu abaalmariyey sida ilaahay tilmaamay subxaanahu wa tacaala muusena uu yidhi fadhab orod oo bax waxaa lagugu abaalmariyey inaad dhahda laamisaasa taabasha ma jirto waxaa lagu abaalmariyey ninkaa qof allaalo qofkii ka hor yimaada inuu yidhaahda ha itaabanin waayo haddii jasadkiisa la taabto meeshii laga taabtaa go'aysoo ilaah ku abaalmariyey subxaanahu wa tacaala haddii la salaamo intii laga salaamaa ka go'aysa qof bani aadama markuu ka hor yimaado waa soo booda markaasuu leeyahay laamisaasa waxaan kugu abaalmarinay an taquul inaad dhahda intaad adduunyada joogta laamisaas taabasha ma jirto fiiri ayaa la yidhi ilaaha aad haysatay iyo waxyaabaha aad samaynaysay dibigii ayaa la soo qabtay waa la gubay lanuxarriqannahu waan gubaynaa uma lanansifannahu kabacdi waxaan ku bitinaynaa yammiga iyo baxarka nasfan buu dhahay ilaahay badbitin inta la gubay ayaa la bitiyey sidaa ayaa kuu sugnaatay adduunkana saasaan kugu abaalmarinaynaa aakhirana cadaab aan kala go' lahayn ayaad leedahay sababto waxay tahay wuxuu sameeyey shirki iyo qoomkii ayuu ka dhaadhiciyey inay ilaahay kayrkii caabudaan waa dibiye xaaladdu markay meesha u maraysay oo dhibaatadaa faraha badan ay ku sugnaayeen nebi muuse aad iyo aad ayuu ula dagaalay xanaaqiya ciilkii ayaa ka badnaa mar allaala markii ay ka tagtay xanaaqii walamaa suqita mar allaala markii lagu riday gacmahooda ama walamaa sakat mar allaala markay ka xasishay muuse qadabkii iyo xanaaqii alwaaxdiisii ayuu soo qaatay kutubihii ayuu soo qaatay markaasuu reer bani israa'iil tusaaleeyey inay ku dhaqmaan oo ay ku camal falaan oo ay raacaan axkaamta ilaah u soo dejiyey subxaanahu wa tacaala reer bani israa'iil saan tilmaamayna dad aad iyo aad u dhibaato badan ama dhib badan waaye gobol ayaga ka mida ayaa tilmaamay mar kasta inaad baxdaad ilaahay la hadlaysaa ilaahay hadalkiisana dhegaysii ayay dhaheen ilaahay hadalkiisa inaan maqalnaan rabnaa muusow haddii kale wax aan kaa yeelaynaa ma jiro wax aan kaa maqlayna ama aan kaa dhegaysanayna ma laha sidaa mar allaala markay yidhaahdeen wakhtaara muusa nebi muuse qoomkiisa waxa uu ka doortay 70 rajul wuxuu ka doortay 70 nin miiqaadkeenii iyo ballanteenii ayuu u soo doortay buu dhahay ila subxaanahu wa tacaala 70 nin oo akhyaartooda ka mid ah ragga cuqalada ah oo waxgaradka ah ayuu u doortay oo markaa u xulay waxaa la rabay in ilaahay hadalkiisa la soo dhegaysiiyo subxaanahu wa tacaala nebi muuse waa soo waday raggii wuxuuna keenay goobtii ilaahay uu kula hadlaayey mar allaala markay maqleen kalaamkii ilaahay hadalkiisa ay dhegaysteen subxaanahu wa tacaala waxay dhaheen maya muuse arrintaa kaa yeeli mayna arina allaha jahra si caddaana noo tusi ilaahan hadlaaya aad sheegaysa oo hadalkiisa aan maqalnayna tusi sidaa ayay markaa yidhaahdeen arina allaha jahra ilaahay si caddaan ah noo tusi haddii aad tahay mid run sheegaaya mar allaala markay sidaa yidhaahdeen faaqadathum asaaciqa qaylo ayaa qabatay dhammaantood waa lagu qayliyey oo jibriil inta loo soo diruu ku qayliyey saaciqada ayay kulligood ku dhinteen buu dhahay ilaa subxaanahu wa tacaala meesha ayay daadsanaadeen oo meyd ay ku noqdeen meesha ayuu ilaahay ku riday subxaanahu wa tacaala nebi muuse waxa uu ka cabsaday haddii saa uu uga tago inay yidhaahdaan qoom dhib badan waaye nebi muuse raggii waa soo dilay
arrintaa ayuu ka cabsaday, ilaahay ayuu bariyey. markaasuu dhahay ilaahayow nafsadooda ku soo celi, ilaahayow ma waxaad nagu halaagaysaa bimaa facala asufahaa'u minna, sufahada iyo doqomada maangaabtee annaga naga mida waxyaabaha ay samaynayaan. ilaahayow naftooda ku soo celi, ilaahayow ha noo qabanin bimaa facala asufahaa'u minna. arrintaan ma aha ilaa fidnadaada maahane, qofkaad doontaad dhumisaa, qofkaad doontaad hanuunisaa. ilaahayow dad ayaa ku hanuunaya ayagoon dhihin ilaahay hanala tusiyo, dad ayaa hanuunaya ayagoon dhihin ilaahay hanala taabsiiyo, dad ayaa hanuunaya ayagoo rabbi subxaanahu wa tacaala mar allaala marka hadaladiisa iyo waxyaabaha uu dadka amray ay maqlaan, qolana wax allaala wixii la tusiyo oo la tusaalay waad u jeedaa qoomka ayay hanuuni la'yihiin. ilaahayow qofkaad doontaad hanuunisaa, qofkaad doontana waa dhumisaa ayuu yidhi nebi muuse calayhi salaam. ilaahay xayaatadooda ayuu mar labaad ku soo celiyey, waa nimco ilaahay siiyey. uma bacatnaakum min bacdi mawtikum lacallakum tashkuruun, geeridiinnii ka bacdi ayaan idin soo noolaynay oon idin soo bixinay buu dhahay ilaahay. intaa waxaan rabnaa inaad shukrisaan ood ilaahay u mahad celisaan, ood noqotaan dad daacada rabbi qaadanaya oo diinta ilaahay fulinaya subxaanahu wa tacaala. reer bani israa'iil mar allaala markii sidaa la yeelay oo raggaa haddana nafsadoodii loogu soo celiyey oo meesha ay ku soo laabteen, nebi muuse wuxuu samaynaya tacliimin iyo inuu diinka baraayo, inuu ilaahay ku xiraayo, inuu u sheegaayo inuu asaga nebi yahay, risaalo loo soo dhiibay, ayagu ay ku xirmaan ilaahooda subxaanahu wa tacaala. aad iyo aad ayay u dhibaato badnaayeen ayaga. in badan oo ka mida ayaa haddana ka leexsanayd oo aan oggolayn diintiisa inay markaa raacaan. nebi muuse calayhi salaam isla wakhtigiisa waxaa dhacday maalin maalmaha ka mida haddana inuu ahaa nin adeerkii ah jiray oo dhaxalkiisa qofna aan ka xigin ayaa xoolo badan lahaa. ninkaa caqiim ayuu ahaa nin madhala ah. halkaa wiil ayaa jiray oo mataqaanaa waxuu u yahay oo dhaxalkiisa markaa leh. ninkii waa degdegsaday oo wuxuu sugi waayey odayga dhimashadiisa iyo ridiisa. waa soo qabtay habeennimo ayuu dilay, maydkiisa intuu soo jiiday ayuu bannaanka isaga tuuray, jiifkiisa ayuuna ku noqday. subaxdii marka uu soo kacay uu arkay maydkii asaga xalay uu sidaa yeelay ayuu oohin iyo qayle isku daray. ayaa la yidhi ninkaa uu yidhi waxaan noqday nin baaba'ay, waxaa igu dhacday musiibo, waxaa layga dilay odaygii adeerkay ahaa. i hadalla noocaasoo kale ah ayuu ninkii ku qayliyey. waa la ogaan waayey ninka qofkaa dilay. sida xaaladiisu ay tahay ayaa la dabagalay oo la raadraadiyey, laakiin wax natiija ayaa laga waayey. way tashadeen, markaasay yidhaahdeen arrintaan dhacday bal muuse u geeya, nebi muusena aan u tagno, aan weydiino ninkan qofkii dilay. asagaa sheeganaya inuu ilaahay la soo hadlo subxaanahu wa tacaala. waa soo baxeen, nebi muusey u yimaadeen, markaasay dheen muusow ninkaanaa nala ka dilay ee sidee yeelnaa? ninkaanaa nala ka dilay ee sidee xaaladeennu tahay? noo tilmaan qofkii markaa dilay. waid qaala muusa liqawmihi, waqti xus buu dhahay ilaahay nebi muuse qoomkiisii uu ku yidhi mar allaala markay dhaheen ninkaanaa nala ka dilay ee see yeelnaa. nebi muuse ilaah nootuug markay dhaheen, nebi muuse wuxuu yidhi ilaah wuxuu idin amrayaa an tadbaxuu baqara, inaad baqaro gowracdaan, sac inaad gowracdaan oo cadkiisa aad ku dhufataan ayuu ilaahay idin amra subxaanahu wa tacaala. mar allaala markuu sidaa yidhi qaaluu atattaqidunaa huzwa, waxay dhaheen ma nagu jeesjeesaysaa muusow? cayaar may xaaladaada isku beddeshay? hadda maad tilmaantay ama aad la timid inaad istihzaa iyo jeesjees aad la timaado. atattaqidunaa huzwa, ma waxaad naga dhiganaysaa kuwa lagu jeesjeeso? muusow see waaye xaaladaada? nin weyna waad u eg tahay. waxaan ku dhahnay nin ayaa nala ka dilay ee see yeelnaa? sac gowraca af miya? ma nagu jeesjeesaysaa? nebi muuse wuxuu yidhi acuudu billaahi an akuuna min aljaahiliin, ilaahay ayaan ka magan galay inaan juhaasha ka mid noqdo. ilaahay ayaan ka magan galay inaan jaahiliinta ka mid ahaado. waayo jaahil waayo qofka dadka ku jeesjeesaaya, qofka dadka liidaaya oo yasaaya waa jaahil. sidaa darteed ayuu nebi muuse yidhi ani ma idinku jeesjeesaaye? haddaan wax idinku jeesjeesi lahaa juhaasha ayaa lagu yaqaanaa. ilaahay ayaanana ka magan galay subxaanahu wa tacaala. acuudu billaahi an akuuna min aljaahiliin. way baxeen, cabaar bay maqnaadeen, markaasay soo noqdeen. waxay dhaheen qaaluu udcu lanaa rabbak, rabbigaaga noo tuug waayaheeyobayi lanaa ha noo caddeeya maa hiya, lo'du waxay tahay.
lo-du waxay tahay ha noo caddeeyo, waayo lo' weyn ayaa jirta oo wax soo dhashay, mid qaalina ayaa jirta, mid bikraa ayaa jirta oo yar. sidee waaye rabbigaa noo tuugba ha noo caddeeye. nebi muuse wuxuu yidhi innahu yaquul, ilaah wuxuu idin dhahayaa innahaa baqara, waa lo laa faaridun walaa bikrun, aan faarid ahayn mid weyn, mid bikraa oo yarna aan ahayn, waa inay cawaan ahaataa iyo mid u dhaxaysa bayna daalika, waa bikranimada iyo weynaanta mid u dhaxaysa inay tahaye sameeya waxa markaa laydin amraayo. waa baxeen haddana waa u soo noqdeen, fiiri dhibkooda. waxay yidhaahdeen muusow rabbigaaga noo tuug, yubayin lanaa maa lawnuhaa, ha noo caddeeya midabkeedee. lo-da say u taalaa, mid caddaan miyaa, mid gaduud miyaa, mid madow miyaa, mid awran miyaa? rabbigaa ha noo caddeeya midabkeeda iyo sida ay u taalo. nebi muuse wuxuu yidhi ilaah wuxuu idin leeyahay waa lo safra ah oo midabka safraa ama booran, midabkeedu uu yahay mid shadiid ah oo aad iyo aad u daran yahay, wax bar ah inaysan lahaanin ayuu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala, laa shiyata fiiha, wax bara inaysan ku aalin ayaa la rabaa. waa in lo noocaasa ay noqotaa. sidaa ayuu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala. nebi muusena markaa loogu faray. waa baxeen haddana waa soo noqdeen, waxay dhaheen muusow rabbigaaga noo bari, ina albaqara tashaabaha calayna. loohu waa isaga kay darsameen, kuwa waa la listaa, kuwa waxaa lagu fashaa beeraha, kuwa beeraha lagu waraabiyaa. tay ka mid tahay haddana su-aashaas ayay keeneen. su-aashaasay haddana markaa la yimaadeen. nebi muuse wuxuu yidhi ilaah wuxuu idin amrayaa inay lo-du ahaato mid aan daluulsanayn, oon la dulaynin, oon beer lagu falin, oon wax lagu waraabinin, inay ahaato musallamo. waa inay ka ahaataa mid ka nabad gashay wax nusqaan iyo ceeb iyo shaqa oo dhanba ee sameeya waxa markaa laydin amraayo. intaa wixii ka dambeeya ayay dhaheen haddaad xaqa la timid, wa innaa in shaa allah annagana haddii ilaah yidhaahda lamuhtaduun, kuwa ku hanuunaya ayaan nahay. way baxeen saci raadintiisii ayay aadeen. saci ayay raadin iyo waxaa loo galay in la goobo meeshii markaa laga soo heli lahaa. ma u jeedaa marka hore heerka ay taagneed iyo marka dambe heerka ay noqotay. marka koowaad waxaa la yidhi sax gowra ee cadkiisa ku dhufta. sac caata ah oo daciif ah ama madow ha ahaada ama gaduud oo meesha jooga hadday soo qabtaan oo ay qalaan oo cadkiisa ay ku dhuftaan waa ka suurageli lahayd. laakiin su'aal fara badan ayay meesha keeneen ilaa markii dambe saca looga dhigay mid macduum ah oon la heli karin oo raadintiisa muddo fara badan ay ku qaadatay. su-aasha faraha badan aad iyo aad ayay u xun tahay. rasuulka sala allahu calayhi wasalam markii xajka lagu waajib yeelay ayuu dadka u qudbeeyey. wuxuu yidhi dadow ilaahay xaj ayuu waajib idinkaga dhigaya, soo xajiya. nin asxaabta ka mida ayaa yidhi akulla caamin yaa rasuul allah, rasuulkii allow sanad kasta maan xajinaynaa. nebiga waa ka aamusay. mar labaad ayuu ku soo celiyey sanad kasta maan xajinaynaa. nebiga waa ka aamusay. mar saddexaad ayuu ku soo celiyey sanad kasta maan xajinaynaa. rasuulku wuxuu dhahay haddaan haa idin dhihi lahaa waa idinku waajibi lahaa, mana awoodi lahayn. war xajku hal mar waaye, wixii ka badanna waa tadawuc iyo sunna falasho. war iga taga intaan idinka tegaya ayuu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam. haddaan shay idin amro oo waxaa sameeya aan idin dhaho, kala imaada in allaala intay awoodiina tahay. haddaan wax idinka reebo bataatan uga wada taga oo ha u dhowaanina. shayga waajibaadkaa tabartaadii awooddaada ku sameey. shayga xaaraantaa dhammaan ka tag, sidaa ayaa lagu amray. waxa xaaraamta ah awood iyo istidaaca kuma xirna, laakiin waa inaad bilkulliya uga tagtaa. qamrada ilaahay ayaa xaaraantinimay, waa u dhowaana, waa kabana, waa dhadhaminaa, mamnuuc waaye. shayaalka kale xaaraamtaa kulli sidaas ayuu ilaah u tilmaamaa. amaa shayga xalaasha ah ama waajibaadkee laydin amray, kala imaada mastadactum inta aad awoodi kartaan. dadkii adinka idinka horeeyey waxaa halaagay su'aal fara badan ayuu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam, iyo khilaaf ay ambiyaashu khilaafayeen. khilaaf fara badan ay ambiyaalku khilaafayeen ayaa halaagtay, iyo su'aal fara badan ayuu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala nebigiisa. war intaan idinka aamusanahay iga aamusa. war intaan idinka tegaya iga taga. haddaan wax idin amra waajibaadka awoodiina kala imaada. war haddaan wax idinka reeba bilkulliya uga taga, ha u dhowaanina. sidaa ayuu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala rasuulkiisa.
haddaba xaaladdu markay meesha u maraysa waxaad fahmaysaa su'aalaha faraha badan inay aad iyo aad dhibaato u leeyihiin oo ilaah subxaanahu wa tacaala agtiisaysan qiimo ku lahayn. waayo ilaah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tas'aluu can ashyaa, war dadka mu'miniintow ha su'aalanina sheeyaala haddii laydiin caddeeyo aad ka xumaanaysaan. haddaad su'aalataan ayadoo qur'aanka la soo dejinayo waa laydiin caddaynaa. intaa wixii ka dambeeya qoom ayaa jiray adinka idinka horeeyey oo su'aalo fara badan su'aashay, intaa ka bacdina waxay noqdeen kuwa ku gaaloobay oo markaa ku kufriyey. su'aalaha dhowr ayaa loo qaybiyaa. mid waa mid waajib ah oo qofka inuu su'aasho ay bannaan tahay. wax allaala wixii waajibaad ah oo diinkaaga ku tacalluqa, salaada, soonka, xajka, axkaamta, beeca, nikaaxa iyo waxyaabaha lamidkaa inaad su'aalata waajib ayay tahay. fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun. su'aasha dadka cilmiga u saaxiibkaa haddaadan idinka aqoonin ayuu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala. cilmiga inay dalbaan waajib ayay ku tahay gabar iyo wiil walba oo mu'miniinta ka mid ah ayuu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam. su'aal waa mid noocaas ah oo waxyaabaha diintaada ku tacalluqda ah inaad ogaato ood barato oo aad weydiisato. bacdamaa diintaada ay ku tacalluqdo waa shay waajiba inaad weydiisato oo aad iyo aad u wanaagsan. su'aal labaad ayaa jirta oo su'aal tafaquh la yidhaahdo, fiqidoon iyo waxyaaba noocaas oo kale ah. qofku waxyaabaha waajibaadka waa yaqaanaa, laakiin faham diineed oo ka sii sarraysa ayuu rabaa. waxyaabaha ay doonaan inay su'aashaan way u bannaan tahay. dadka gobol ka mida, dadka maxaakiimta iyo dadka wax xukminaya iyo dadka fadwadoonka iyo dadka noocaasaa loola jeedaa. su'aashaan madmuumka ah ee la dagaalay oo la diiday oo xaaraamta oon la ogolayn oo la leeyahay dadkii hore ayay halaagtay, waa su'aal aan faa'iido lahayn, qiimana lahayn, qofkana uu rabo inuu markaa su'aasho. matalan waxaad arkaysaa qof salaada ka tegey, ilaahay diinkiisa aan ku soconayn, gabar daacada rabbi diiday, xijaab iyo waxyaabo rabbi aan lagu karin. waa kuu imaanaysaa markaasaa waxay ku leedahay matalan waxaan ku weydiinaa warniyow hadduu qof caaya see la yeelaa. su'aalooyin noocaas oo kale ah. maxaa qof caayadeed kuu geeyey? adaa ilaahay caayay subxaanahu wa tacaala oo diintiisii ka tegey oo salaadiisii ka tegey, waxyaabaha uu ku amray samayn waayey. xaaladda noocaasay markaa u jirtaa. say noqotaba su'aashaysay u wadeen markaasuu ninkii ilaah soo nooleeyey uu sheegay ninkii markaa dilay. sida ilaahay tilmaamay subxaanahu wa tacaala, faqulna idribuuhu bibacdiha. waxaan ku niri qatiilkii la dilay waxaad ku dhufataan saca cadkiisa ama gobol ka mid ah. faqulna idribuuhu bibacdiha. waa soo noolaaday. kadalika yuxyi allaahu lmawta. sidaa ayuu ilaahay u nooleeyaa waxyaabaha dhintay. aayaadkiisana idin tusiyaasaad markaa ugu caqli qaadataan. ilaahay qisada wuxuu ku tilmaamay xaaladda inay sidaa tahay. saasaana markaa loo kala baxay. nebi muuse calayhi salaam aad iyo aad ayuu dadka u wacdinayey, xaqana ugu sheegayey. maalin ayuu istaagay sida nebiga ka sheekeeyey sala allahu calayhi wasalam reer bani israa'iil dhexdooda asagoo khatiib oo khudbaynaya. khudbadii markuu dhammeeyey ayaa nin su'aal su'aalay oo yidhi muusow dadka yaa ugu cilmi badan? markaasuu yidhi nebi muuse aniga ugu cilmi badan. anaa ugu cilmi badan markuu yidhi ilaahay ayaa cataaba iyo canaan xaggiisa uga timid waqti uu u bandhigi waayey cilmiga ilaah subxaanahu wa tacaala. ilaahay wuxuu yidhi bal iska dhaaf inaad adiga ugu cilmi badnaatee addoonkeenna khadira ayaa kaa cilmi badan ayuu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala. waa nebi muuse, waa ninka hadda aan tilmaamayna in lala waramay, waa ninka sharaftan iyo wanaaggan la siiyey, waa ninka qiimahan ilaah u yeelay, waa ninka sanduuq inta lagu riday ilaah ka soo badbaadiyey. addoonkeenna khadira ayaa kaa cilmi badan markii la yidhi ma xanaaqin, cadaawanimo uma qaadin, dullinimo uma samaynin, waxyaabo dhibaataa inuu gaarsiiye ama uu dil gaarsiiyey iskuma dayin, xaasidnimo ma jirta meesha. laakiin wuxuu yidhi ilaahayow sidee ku gaari karaa ninkaa iga cilmiga badan? waxaan rabaa inaan cilmi ka bartee. ilaahay wuxuu amray subxaanahu wa tacaala inuu migtal ama dembiil soo qaato oo malaay uu ku rido. meel allaala meesha malaayga uu ku waayo ayuuna markaa ku jiraa ninka. sidaa ayaa tilmaan looga dhigay sida ilaahay kitaabkiisuu kaga sheekeeyey subxaanahu wa tacaala. xus buu dhahay ilaahay waqti nebi muuse uu ku yidhi fatihiisii shaabkiisa anigu ka zuuli maayo inaan soconayo ilaa aan ka gaara majmaca albaxrayn. labada badood meeshaay ku kulmaan waa badda faris iyo midda ruum. ilaa meesha ay ku kulmaan aan gaaro amase aan soxdo xuqub iyo zaman tawiil ah ayuu markaa yidhi. shaabkiisii ama wiil xirtiisa ayuu watay nebi muuse calayhi salaam. waa xiraysanaa. cilmi ayuu rabaa inuu raadiyo. cilmi ayuu raadinaa nebi muuse calayhi salaam.
sidaa darteed ayaa wuxuu soo qaatay migtalka iyo wiilkii Yuushac bin Nun la yiraahdana wuu soo raacay oo way soo raaceen cabaar markay socdeen mar allaala markii ay soo gudbeen meeshii ayaa waxay yimaadeen meel sakhraa oo buura markaa ah meeshii ay markaa jiifteen markii ay noogeen madaxyaalkooda ayay dhigeen weyna hurdeen buu dhahay nabiga sallallahu alayhi wasallam ayadoo la hurdaaya ayaa malaa'igii dambiisha ka dhex baxay wuxuuna dhex galay badda markuu dhex galay meeshii uu maray waxa uu ka dhigay sarab ama meel aan biyaha isku imaanin waxaad u malaysaa bacaadka oo ul lagu xariiqay oo kale biyuhu saasay u kala kaceen wiilkii wuxuu isdhahay Muuse hadduu soo kaco u sheeg laakiin waa iloobay cabaar markay socdeen oo aad iyo aad ay u sii daaleen oo muddo fara badan ay socdeen ayaa nebi Muuse waxa uu dareemay daal iyo tacab iyo baahi ma dareemin ayaa la yiri ilaa uu gudbay makaankii Ilaah ugu talagalay subxaanahu wa ta'ala makaankii Ilaah ugu talagalay ama loogu tilmaamay markuu gudbay ka bacdi ayuu dareemay daalka markaasuu yiri aatina ghadaana warqadadeena lasnasi laqad laqina min safarina hada nasab iyo dhibaato iyo dil iyo daal ayaan kala kulanay safarkan ee kan ahee war waxa aan cunno nooga soo bixi dambiisha iyo wax allaala waxaad haysanna sida ayuu dhahay nabi Muuse calayhi salaam nabi Muuse saan ka soo sheekeynay safar fara badan ayuu soo galay ma jirin ayaa la yiri safar uu ka sheegtay nasab iyo daal iyo dhibaato ilaa safarkan ma ahane sababtu waxay tahay safarkan waa safar cilmi raadis ah cilmi ayuu rabaa inuu ku raadsado safarka cilmiga lagu raadinayo safarada kala lamid ma ahan jihaad ayuu ku magacaabaa nabiga sallallahu alayhi wasallam aad iyo aad ayuu dhibaato badan yahay safarka cilmiga lagu raadiyo nabi Muuse wuxuu yiri aatina ghadaana warnasi raashinkeena waxaan kala kulanay safarkan dhibaato iyo daali anugii wuxuu yiri Muuse iiga waran waqtigii aan u hooyanay sakhradii anigu malaagi ayaan soo hilmaamay imana hilmaansiinin ilaa shaytaan maahana inaan xasuusto jidkiisana arin cajiiba ayuu ka sameeyay inaan ku sheega waa rabay laakiin waa hilmaamay ayuu dhahay shaytaana i hilmaansiiyay inaan ku sheega waa rabay xaalad cajiib badan ayuu sameeyay badda ayuu dhex galay nabi Muuse wuxuu yiri meesha waa meeshii aan raadinaynay ee naceli fartada way soo laabteen ayuu yiri ila subhanahu wa ta'ala aathartooda iyo raadkoodii ku soo noqdeen ayagoo qasas ah oo raad guraaya oo raadkoodii raadinayo markaa ku soo soconaya ama isu qisoonaya waxyaabaha dhacaya ama wixii soo dhacay ay meeshii ku soo noqdeen nabi Muuse wuxuu soo aaday ama uu yimid meeshii malaayga lagu waayay oo calaamada sameeyay waxay arkeen nin dhar cagaaran ku duuduuban oo badda dhexdeeda jiifa Muuse ayaa u tagay oo yiri assalaamu calayk nabadgelyo korkaaga ha ahaato aad ayuu ula yaabay Khadir ayuu ahaa markaasuu arladaada xagee salaantan uga timid markaasuu dhahay aniga Muuse ayaan ahay buu dhahay Muuse ayaan markaa ahay waxaan rabaa inaan cilmi ka barto oo wax allaala wixii Ilaahay ku baray aad i barto qayb kamid ah sida ayuu dhahay Muuse calayhi salaam markuu meesha markaa ugu yimid wuxuu yiri waxaan kuugu imid waxay tahay inaad i barto wixii lagu baray rushdi iyo hanuun Khadir wuxuu yiri innaka lan tastatiica ma'iya sabra Muuse ma sabri kartid nin wax la bari karana ma tihide walaalow raali iska ahaw oo iska noqo sida ayuu markaa yiri Khadir nabi Muuse sidaas lagu yiri nabi Muuse wuxuu yiri calayhi salaam wax allaala wixii aad i amarta waa sameyn doonaa waxaan noqon doonaa nin adkaysanaya ibar ayuu yiri waan sabri doonaa satajiduni insha Allah min as-saabiriin hadii Ilaah yiraahdo kuwa sabraya ayaan ka mid noqona seed ugu sabraysa ayaa la yiri waxaadan wali markaa cilmigooda koobin waa sabri doonaa ayuu yiri Khadir iyo Muuse balan ayay kala galeen oo Khadir wuxuu yiri wax allaala wixii aan sameeyo adiga idaba soco idageyso imaqal waxnana ha i weydiinin sida ayaa lagu dhahay nabi Muuse calayhi salaam hadaad iraacda fala tasalni an shay xaqiisa ha i weydiinin illa aniga aan kaaga sheego waxa dhikrigiisa xuskiisa uu markaa yahay balan ayaa la kala qaatay nabi Muuse inuu aamuso wax allaala wixii la sameeyo Khadirna wax allaala wuxuu raba uu sameeyo ninkaana uu daba socdo sida ayaa markaa lagu ballamay way soo raaceen Muuse iyo Khadir waxa la soo maray badda xeebteeda doon ayaa ka daba timid buu dhahay nabiga sallallahu alayhi wasallam doontii ayay soo raaceen Khadir ayaa la fahmay waa la soo qaaday bighayri nooli la'aan ayaa lagu soo qaaday ama lacag la'aan
rasuulku wuxuu yidhi mar allaala markii doontii ay ka wada degeen oy dadkii ay wada degeen oo muuse iyo khadir ay ku hareen shimbir ayaa timid oo waxay ku istaagtay alwaax doonta ka mid ah badda ayay waxay ka cabtay 2 cabitaan ama 3 mar oo cabitaama ama 1 mar khadir wuxuu ku dhahay muusow cilmi ayaa lagu siiyey aan aniga laysiinin adigana cilmi ayaa lagu siiyey aan ani laysiinin adigana saasoo kale cilmigaaga iyo cilmigayga marka laysku daro cilmiga ilaahay loo barbar dhigo waxa uu la mid yahay shimbirtan waxa ay badda ka nusqaamisay oo kale wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliilan cilmiga xaggiisa laydinkama siinin ilaa wax yar maahane khadir cilmiga la siiyey iyo midka muuse la siiyey marka laysku daro wuxuu la mid yahay shimbirta waxay cabtay oo kale baddana waxaa la mid ah cilmiga ilaah subxaanahu wa tacaala ma dhammaado ma go'o ma baaba'o subxaanahu wa tacaala intaa ka gadaal markii sida ay istusaaleeyeen ayaa khadir istaagay doontii lagu soo qaaday lacag la'aanta lagula soo qaaday ayuu alwaax ka fujiyey waana jebiyey khadir alwaaxii ayuu soo fujiyey nebi muuse ballantu waxay ahayd inuu aamuso wax kasta oo la sameeyo inuu shib iska dhaho waa iscelin waayey calayhi salaam markaasuu yidhi qoom doontooda nagu soo qaaday lacag la'aan nagu soo qaaday miyaad doontoodii u qasaday oo alwaaxa aad ka fujisay lituqriqa ahlahaa say ehelkeeda u qarqisay u maashayso laqad ji'ta shay-an imraa waxaad la timid shay cadiima oo weyn khadarow maxaad u fujinaysaa dadkan doontooda war dadkan fiican oo xaaladoodu ay sidaa tahay doontooda maxaad u fujisay khadir wuxuu yidhi innaka lan tastatiica maciya sabraa adiga ma sabri kartid nin wax la bari karana ma tihid nin aamusaayana ma tihide nabadgelyo muusow aan kala tagnay ammaan isii sidaa ayaa lagu yidhi muuse calayhi salaam laakiin nebi muuse waa cudur daarto wuxuu yidhi walaalow iga raalli ahaw arrintan nisyaan iyo halmaanay iiga dhacday mar dambe wax ma ku su'aalaaye nawad oo xaalad kasta sameey anigana laakiin ha igu kalifin waxyaabo culays ah oo marka aan la xamili karin arrintaana waxay iga dhacday halmaan ayuu yidhi waa loo cudray oo waa la socday cabaar ayagoo socda ayaa waxay soo mareen haddana sida ilaahay tilmaamay ilmo meel ku ciyaaraaya ilmihii ciyaaraya ayaa loo soo galay mar allaala markay u yimideen oo ay u soo dhex galeen ayaa khadar wuxuu sameeyey wiilasha ciyaaraya ka mida intuu soo qabtay ayuu meeshaa qoorta korkeeda ah wuxuu uga dhuftay hal feer ama hal lootaa canugiina waa dhintay canugii waa dhintay muuse arrintii waa la weynaatay inuu aamusaa la rabay inuu shibdhahaa la rabay markaasuu yidhi aqatalta nafsan zakiyatan bigayri nafsin haddana naf tahiran oo naf aan dilin maa dishay khadarow laqad ji'ta shay-an nukraa waxaad la timid haddana shay kii hore ka weyn oo ka dhib badan oo la inkiro ayaad la timid maxaad u dishay maskiinkan maxaad saa u yeeshay ballantu waxay ahayd inuu aamusow shib iska dhaho ileen waa arday ninkan waa macallin inuu macallinkiisa ka dambeeya loo baahnaa nebi muuse waa adkaysan waayey naf oo la gooya dhibka ay leedahay ayuu ogaa markaasuu dhahay ma nafaad dishay haddana dilkeeda ilaahay xaaraantinimeeyey oo naf aan dilin shay imra'a oo xun oo la inkiro ayaad la timid khadir wuxuu yidhi maxaa dhacay maxay xaaladaadu tahay maxaad dalee ma ku dhihinoo aniga aamus alam aqul laka innaka lan tastatiica maciya sabraa aniga ma ku dhihinoo hadda ma sabri kartid warniyow nin wax la bari kara ma tihida muuse ma iga tegtid warninyow nin wax maqlaay ma tihida idhaaf warninyow xaaladaadu saas mee nin jaahil ah ayaa wax la bari karaa nin caalima wax lama bari kara idhaaf sidaa ma ku dhihinoo sidaa ayaa la yidhi nebi muuse wuxuu yidhi haddaan mar kale ku su'aala iburi buu dhahay in sa'altuka can shayin bacdaha falaa tusaaxibnii haddaan ku weydiiyo midaan wixii ka dambeeyo haba ila saaxibin ilaan cudurdaarkia iga dhammaaday iska kay buri buu dhahay ballantaa lagu kala qaatay waa la socday haddana cabaar markii la socday ayaa magaalo la galay magaaladii markay tageen ayaa waxay weydiisteen quud ehelkeeda waana loo diiday in la quudiyo ayaa loo diiday nebi muuse iyo ninkii la socday khadir markaa ahaa markay magaaladii soo galeen waxay dalbeen in la quudiyo laakiin fa abow an yudayifuuhumaa in la marti qaado oo raashin la siiya waa loo diiday markii loo diiday ayagoo meel fadhiya ayaa waxay heleen jidaar iyo derbi yuriidu an yaqada inuu duma u dhow nebi muuse iyo khadir way istaageen khadir ayaa derbigii dhisay oo markaa u toosiyey nebi muuse waxaa la rabay inuu iska aamuso shib uu iska dhaho wax kastoon sameey iga aamusay ballanta ahayd markaasuu yidhi qoom noo diiday raashinkooda oo na martiqaadi waayey oo wuxooda na siin waay maa derbigooda u dhistay low shi'ta lataqadta calayhi ajraa haddaad doonta ajir ayaad
ka qaadan lahayd warbax wax nooga soo qaad sida ayuu yiri nabi muuse waxaa loo yiri markii dambe haadaa su'aashaan aad i weydiisay iyo arintan aad hadashay waa firaaq iyo kala tag ani adi aan ku kala tagayno niyo nin la wadi kara ma tihid nin wax la bari kara ma tihid nin wax dhageysanaya ma tihid nin aamusaya ma tihid iska kay dhaaf midkaana waa midii ugu dambaysay waana ku kala tegaynaa ayaa la yiri waayo arintan waa arin aadan ogeyn waxaana ku sheegi doonaa ayuu yiri ta'wiisha iyo arintii aan sameeyay dhageyso safiinadii iyo doontii aan jabiyay waxa iska lahaa masaakiin yacmaluuna fil bahr baday ka shaqaysanayeen gadaashooda ama hortooda boqor ayaa ahaaday zaalim ah doon kasta oo saalix ah oo wanaagsan oon ceeb lahayn ayuu ganaax iyo boob iyo canshuur ka qaadaa ama sidoo dhan ayuu la wareegaa waxaan rabay wiilashan masaakiinta ah boqorka askartiisu markay yimaadaan doomaha ay fiiriyaan inay ogaadaan doontan inay ceeb leedahay maca daalika ay u badbaado doontooda hadday yimaadaan alwaaxooday soo qaadan lahaayeen waa ku dhajisan lahaayeen markay ku dhajistaan ayay sidaa ugu nabadgeli lahayd waa asxaan fal waa wanaag waa qiimo arintaasaad ogaan weysaa la yiri canugii aan dilay hooyo iyo aabbu lahaa ayagu waxay ahaayeen mu'miniin waxaan ugu cabsanay inuu ku kalifo tuqyaan iyo qooq iyo kibir oo gaalnimo hadhow asaga sababtiisay u noqdaan ilaan canug madax adag oo caasi ah oo ilaahay diinkiisa aan lagu karin waaye hadhowna waalidka gobol kamida ilmahay la saftaan ma fiicna waalidkina ilmaha la saftaan mar allaala marka ay gar leeyihiin gartooda la siiyaa ilmaha haddaysan gar lahayn gardaradooda la saaraa waxaad arkaysaa waalid marka ilmahooda looga soo dacwoodo oo dariskay uga soo dacwoodaan ilmahooda la sii safanaya xaaladda noocaasa mamnuuc waaye arrintaa inuu ku kalifaan ka cabsanay ilaahay wuxuu doonay inuu ugu bedelo mid asaga ka khayr badan xagga baari ahaashadii xagga taskiyada iyo naxariista iyo wanaaga asagii waa la dilay gabar ayuu ilaah ugu bedelay subxaanahu wa tacaala wa ama aljidaar derbigii aan dhisay waxaa iska lahaa ghulaamayn yatiimayn laba wiil oo yar yar ah oo agooma ah derbiga hoostiisa ama dhulkaa waxaa ugu jiray kanzi iyo xoolo iyo maal aabbahood nin saalixa oo fiican ayuu ahaa ilaahay wuxuu rabay inay qaangaaraan oo markay adeega gaaraan ay kala soo baxaan kanzigooda iyo awoodooda tani waa naxariis xagga rabbi ka timid tani naxariis waaye rabbi xaggiisay ka timid xaggayga kama ahaanin ayuu yiri waxaad fahmi kartaa waxyi xagga rabbi uga yimid inuu ahaa waxaad fahmi kartaa cilmul ghaib inuusan ahayn waxaad fahmi kartaa waxyaabaha la tilmaamayo oo la leeyahay cilmi baatin iyo yaqaanay khadiro muusa cilmi dhaahir yaqiinay iyo arinta inaysan waxba ka jirin waa cilmi xagga rabbi uga yimid subxaanahu wa tacaala arintan waa raxmad oo rabbigay xaggiisa ka timid ayuu yiri wama فعلته عن أمري أني أمركيga kama samayn maskaxdeeda ma ka samaynin waxyaabo ii qarsoona ma aha arintan ta'wiishi aad awoodi weysay ama aad kari weysay waaye sida ayuu dhahay qadir calayhi salaam inta wixii ka dambaysa way ku soo kala tageen nabi maxamed wuxuu yiri sallallahu alayhi wa sallam rahimallahu Musa nabi Muuse ilaahay ha u naxariisto waxaan rabi lahaa buu dhahay oon aad iyo aad u jeclaan lahaa inuu iska sabro wax kasta ha la sameeyo qisada ilaa aan ogaana heerka ay gaarto ilaan waa sii socon lahayd waxyaabo kaloo sii samayn lahaa ilaa xaaladda ugu dambaysa ay gaarto aan ka ogaano ayaan jeclaan lahaa buu dhahay nabiga calayhi salaam inuu nabi Muuse sabro oo nabi Muuse adkaysto oo nabi Muuse is adkeeyo oo nabi Muuse sabarka ku dadaalo aad ayaan u jeclaa ilaa aan ka ogaano natiijadooda iyo ciribtooda dambe heerka ay noqoto laakiin nasiib xum nabi Muuse waa la soo buriyay calayhi salaam waana soo noqday inta wixii ka dambeeyay kama istaagin mar walba inuu reer bani Israa'iil wacdinaayo oo xaqa iyo diinku u sheegayo oo taacada Ilaahay uu tusayo subxaanahu wa ta'ala reer bani Israa'iil oo aan soo tilmaanay dad aad iyo aad u dhibaato badan inay markaa yihiin maalmaha kamida ayaa meelihii ay deganayeen ama arladii muqaddasada ay ka soo baxeen ilaahay ayaa amray subxaanahu wa ta'ala inay jihaad ama dagaal ku qaadaan oo meesha ay galaan sida ilaahay tilmaamay subxaanahu wa ta'ala nabi Muuse ayaa qoomkiisa ku yiri gala ardal muqaddas taasoo ilaa uu idinku waajib yeelay subxaanahu wa ta'ala gadaashiina ha u soo noqonina hadhow waad ridoobaysaan sida ayaa loo yiri waxay dheen qoom jabbaariina ayaa ku jira mana galayno ilaa ay qoomka ka baxaan laba nin oo ilaah u nimceeyay oo rabbi ka cabsanayay ayaa yiri wargala ilaahina tala saarta subxaanahu wa ta'ala hadaad gashaan idinka guulaysanaya wa ala allahi fatawakkalu in kuntum mu'miniin wartalada ilaahi u dhiibta hadaad mu'miniin tihiin maxay dhaheen anagu galimayno mana galayno oo dagaal aan aadayna ma jiro in allaala intay ku dhex sugan yihiin ee Muuse bax adi iyo rabbiga dagaalama anaga intaan idinku sugaynaa
meeshaanaan fadhinaynaa adii ilaahaaga baxa oo dagaalka gala adii ilaahay diriir waa idin fiirsanaynaa saasay markaa dhaheen reer bani israa'iil bax ayay dhaheen adi iyo rabbigaa faqaatilaa dagaalama anagu meeshaan ayaan fadhinaynaa meeshaanaan fadhinaynaa intaa wixii ka dambaysa nebi muuse ilaahay ayuu baryey oo dhahay ilaahayow awood ayaan u waayay ilaa nafsadeeda iyo walaalkay maahane ilaahuna kala bixi annaga iyo qoomkan daalimiinta ah ilaahay wuxuu waajib uga dhigay ama korkooda la saaray tiih in markaa lagu rido waan ka xaaraantinimaynay dusheeda 40 sana 40 sano ayuu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala yatiihuuna fi lard inay arlada ku tiihaan oo ay ku wareeraan oo mashaakil fara badan oo markaa ku qabsado ilaah ugu talagalay subxaanahu wa tacaala ayagoo tiiha ku jira oo wareerkaa ku jira oo dhibaatada ku sugan ayaa oon iyo dhibaato asiibtay ilaah maca daalika subxaanahu wa tacaala waa u sii gargaaray waxaa la hariyey ayaa layidhi dushooda qamaam iyo daruur waxaa lagu soo dejinayey ayaa layidhi manni iyo salwi malab cireed iyo hilib shimbireed oo la dubay ayaa subax kasta meel loo soo dhigi jiray ha kaydsanina ayaa layidhi maalintii cuna wixii idinka baaran iska dhaafa meel ayay dhigteen rasuulku wuxuu tilmaamay reer bani israa'iil haddaysan hilib meel dhigan lahayn inuusan hilib dhanba ureenba adduunka oo dhan tallaajo iyo farajjeer iyo wax loo baahan lahaa markaa ma jirin sidaa darteed ayaga ayaa sidaa sameeyey waxay dhaheen muusow ku sabri mayna calaa طacaamin waaxid hal dacaam keliya ee fadcu lanaa rabbak rabbigaaga noo tuug ha nooga soo bixiyo waxyaabaha dhulka uu dhalinaya min baqliha wa qifaa'iha wa fuumiha wa cadasiha wa basaliha ha noo soo bixiyo begelkeeda qaraheeda iyo xabxabkeeda iyo tuunteeda basasheeda iyo digirteeda waa cadaskee ha noo soo bixiyo markaasoo dhama waxaad ku bedelanaysaan midka liita maad midka ugu qiimaha badan ku bedelanaysiin war sidaa ha yeelina ee misir taga ilaah subxaanahu wa tacaala wanaag ayuu idin siinaa ilaahay ayaa loo tuugay markii dambe arrintiina markaa waa loo sameeyey oon fara badan ayaa ku dhacay istisqa ayuu nebi muuse u doonay calayhi salaam waid istasqaa muusa liqowmihi nebi muuse qoomkiisa u waraab doonay faqul nadrib bicasaaka alxajar dhagaxaa ma ujeedaa ushaada ku dhufa ayaan ku niri ushii ayuu ku dhuftay waa soo burqaday dhagaxii 12 ilood ayaa ka soo baxay ummad kasta ama naas kasta waxay ogaadeen makaankay ka cabi lahaayeen cuna oo caba ayaa lagu yiri arlada ha fasahaadinina haddaad fasahaadisaan mujrimiin iyo mufsidiin ayaad noqonaysaan sidaa ha yeelina sidaa ayuu ilaah ku salay subxaanahu wa tacaala reer bani israa'iil aad iyo aad bay u dhibaato badan yihiin weli fiiri qisadooda ayadoo sii socota ilaah subxaanahu wa tacaala wuxuu amray markii dambe inay galaan arda almuqadas marka aad galaysaan sida ilaahay tilmaamay wuxuu yiri waxaad ku gashaan idinkoo sujuudsan waxaad dhahdaan ilaahu dambiga noo dhaaf sidaa dhaha ayuu yiri ilaah subxaanahu wa tacaala waqti xus oo reer bani israa'iil qoom nabi muuse uu ku yiri gala arda almuqadas mar allaala marka aad galaysaan waxaad ku gashaan sujadan idinkoo saajidiin oo sujuudsan waquluu xitaa waxaad dhahdaan ilaahu dambiga noo dhaaf waan idin dhaafaynaa dambigii aad gasheen wanaagina markaa waa siyaadinaynaa ilaahay muxuu yiri fabadala alladina zalamuu kuwii dulmiyey way bedeleen qowlkii loo yiri mid aan ahayn ayay ku bedeleen meeshii la dhahay sujuud ku gala waxay ku galeen ayagoo birada ku soconaya ama gurguuranaya meel allaala meeshii la yiri waxaad dhahdaan xita ilaahu dambiga noo dhaaf waxay dhaheen xinta anagu masaga iyo badar ayaan rabnaa dambi dhaaf weligeed yaa la helin haddii la rabee mar allaala markay sidaa yidhaahdeen oo arrinta ay ku bedeleen faanzalnaa cala aladiina dalamuu rijsan kuwii dulmiga sameeyo xaaladoodu sidaa ay ahayd rigsi ayaan uga soo dejinay xagga samada waa dulmigii ay sameeyeen darteed ayuu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala dulmiga ay sameeyeen darteed ayaa sidaa markaa loogu halaago cadaabka lagu soo dejiyey waxa lagu fasiraa daacuun ayuu ilaah ku salliday oo markaa lagu soo diray baabi'iyey ayagoo dhan oo mashaakil fara badan ilaah ku asiibay subxaanahu wa tacaala haddaba qoomkaa qoom aad u dhibaato badan ayay ahaayeen waxay ahaayeen qoom aad iyo aad u cajaa'ib badan nebi muuse qisadiisa aad iyo aad ayay cajaa'ib u leedahay waxaa ku dhex sugan cibro aad iyo aad u wanaagsan oo dadka ulul albaabka ay ku caqli qaataan waan u jeednaa dhibaatooyinka faraha badan ee nebi muuse uu soo maraayo diinta halganka weyn oo loo soo galay iyo sida dhibaatada weyn iyo halganka weyn loogu soo maray iyo sida sahlanaanta ay nagu soo gaartay oo dadka maanta looga la'yahay warkaalaya diinta ilaahay ayadoo sahal ah meel kasta ka qaata barta oo ku camal fala oo ku dhaqma sida ayaa markaa laga la'yahay waxaan soo sheegnay gacmaha iyo lugaha in dad
diinta darteed looga googooyey. waxaan soo sheegnay nebi muuse aad iyo aad in loo dhibay oo cay iyo wax kastii aflagaada la gaarsiiyey. intaasi waa in ay dhaheen rabbigeen ilaahay waaye, waa diintii ay dhaqangeliyeen anagoo maanta diinna la ku haysanin oo wax dhibaato aan naga soo gaaraynin. waxaana la kala yahay kaalaya ku dhaqma dastuurka rabbaaniga ee xagga rabbi ka yimid. war kitaabka ilaahay xukunka dhigta, war kitaabka ilaahay dastuurka dhigta, war kitaabka ilaahay mid lagu xeertama ka dhigta, war kitaabka ilaahay mid lagu xukuntama ka dhigta, war kitaabka ilaahay mid lagu kala baxa ka dhigta. taasaana la ku kari la yahay rasuulka sallallahu alayhi wasallam asagoo gacbada jiifa oo go'barkan oo hooska kacbada jiifa ayaa loo yimid asxaabtiisa markay dhibaato fara badan la kulmeen. markaasay dhan rasuulka ilaahayo miyaadan ilaah noo gargaar weydiinaynin, ilaahay noo gargaar weydiin maysid miyaa? ilan mushrikiinta ayay dhibaato kala kulmeen, midaa daqaran, midaa dhiigiisa socdo, midaa car lagu soo firdhiyey, midaa mashaakil la soo gaarsiiyey asagoo tukanaya. waxay dhaheen rasuulka allow ilaahay ma noo tuugaysido, rasuulka allow ilaahay noo baryi maysid miyaa? ma u jeedid miyaa mashaakilkii dhibaatada aan ku sugannahay? rasuulku wuxuu yidhi dadkii idinka horeeyey qof allaala qofkii diinka soo gala markuu ilaahiisa aamino waa la soo qabanayey, godaa loo qodaayey, waa lagu duugayay. inta dambe inta horaa bannaanka loo soo dhigaayey. waxaa la keenayey shanlo ama waxaa loo keenayay minshaar ama shanla ka samaysan bir ayaa loo keenayey. intaa kabacdi waxaa la dhahayay diinkaaga ka laabo, hadduusan ka laabaninna waxaa madaxa looga kala goynayay minshaarta, waxaa loogu shalleynaya shanladaa birtaa maa duuna laxmihi wa cadmi, lafihiisii hilibkiisa inta u dhaxaysa, maa yasuduhu daalika can diinih, arrintaa diintiisii kama leexin jirin. ilaahayow laa ilaaha ila allah, kitaabka rabbiyaan rabaa dhaqankiisa asoo dhahayay nafta ka bixi jirtay ayuu yidhi sala allahu calayhi wasalam. wallaahi ayaan ku dhaartaye ilaahay diintan waa taam yeeli doonaa, kor ayuu u qaadi doonaa, waa loo nusrayn doonaa ilaa ninka raakibkaee musaafirka uu socdo sanca ka bilow ilaa xadramuud uu ka tago, laa yakhaafu ila allah, asagoon ka cabsanayn ilaahay maahana cid kale, iyo waraaba ariga uu wato uga cabsado. wadi'bu calaa ghanamihi, warkistaan eri aad wadato amuu waraaba kaa cunaa, intaa asagoo ka cabsanaya maahane si kale uusan markaa uga cabsanayn buu dhahay. laakiin waa degdegsiya dalbaysaan oo ha degdegsiya dalbina, arrintaa way imaan doontaa ayuu yidhi sala allahu calayhi wasalam. waad u jeedaa dadka hore sida la yeeli jiray, sida loo dhibaateyn jiray, sida loo gubi jiray, mashaakilka la gaarsiin jiray. asxaabul uqduud fiiri dhibka iyo mashaakilka faraha badan ee la marsiiyey mar allaala markii ilaahay ay aamineen oo diinta ay raaceen, oo wiilkii yaraa markii la dilay ka gadaal ay dhaheen aamanaa birabbi lghulaam, ghulaamkan rabbigiisa ayaan aaminay. oo marka aan rumaynay boqorkii daalimka iyo askartiisa waxay go'aan ku gaareen in godad la qodqodo, xaafadaha afafka ka imaanaya kulli godad lagu qodo oo dab lagu shido, qof kasta oo diinkiisa aan ka noqon lagu rido ama asaga laf ahaantiisa gal la dhaho. sidii ayaa la yeelay, godadaa la qoday, waxaa lagu shiday dabab, waxaa la yidhi qofkaan diinkiisii ka noqonin gal ama isku tuur. muslimiin fara badan, mu'miniin badan ayaa la gubay. waxa loo gubay waa ilaahay diintiisa, waxa loo gubay waa risaaladaa ay marxabaysiiyeen ama ay aamineen. ilaa markii dambe buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam ay timid imra'a ama naag micigeeda sabi iyo canug yariisa ay wadatuu duudka ugu xiran yahay. canug yaroo ayada ay dhashaa duudka ugu xirnaa. mar allaala markay soo dhowaatay dabkii aragtay ayuu yidhi nebiga fataqaacasad, way biiqday, way ka cabsatay, wayna ka istaagtay inay dab ka gasho. weliba waxaa la tilmaamaa ayada ma cabsanine canuga yariiskay u cabsatay. dabkan maad geli kartaa, canugaaga meesha muu ku gubanaa? sidaa ayay istiri. waa imra'a, waa naag rabbigeed aaminsan, ilaahay aaminsan subxaanahu wa tacaala. dabka inay gasho oo lagu gubo ayaa meesha loo keenay, way ka istaagtay. waxaa hadlay canugii yaraa oo markaa la dhalay oo naasnuuga ahaa oo dudkeeda ku xirnaa. muxuu yidhi mataqaanaa? yaa ummaa isbirii, hooyoy iska sabir ayuu yidhi, fa innaki cala alxaq, adi xaqaad ku taagan tahaye. hooye maxaa u istaagtay oo dhahay jannada maa rabin miyaa? naarta ilaahay ayaa ka adag oo ka culus dibkan dhibaatada badan. intaad noqoto aad dhihi lahayd aniga diintayda waa ka noqday oo ilaahay cadaabkiisa ku gelin lahaa, cadaabkan mujrimiintan ay kugu cadaabayaan aa ka sahlan oo ka fudud. yaa ummaa, hooyoy isbirii, iska sabir, fa innaki cala alxaq, adi xaqaad ku taagan tahay, diin ilaahayaad ku taagan tahay, tawxiid allaad haysataa. hooyo sabir, hooyoy adkayso, hooyoy arrintaa ku soco. sidaa ayuu yidhi hooyadii
iyo canugeediiba dabkiyay galeen saasay meesha ugu gubteen weliba waxaa la tilmaamaa intay sii socdeenba inuu ilaahay nafsada ka qaaday oo jasadkii oo keligiis ah markaa dabka uu galay say noqotaba nebi muuse qisadiisa waa qiso aad iyo aad u cajaa'ib badan oo in lagu cibro qaata markaa ay mudan tahay aqiiran iyo gabagabo markii ugu dambaysay nebi muuse malakumowdka ayaa ku soo xaadiray malakumowd ayaa u soo xaadiroo loo soo diray waayo nebi ma dhintay ilaa waa la khiyaargeliyay adduun maad rabtaa mase aakhira la leeyahay maca daalika malakumowd ayaa loo soo diray oo nebi muuse u yimid calayhi salaam markuu salaamay ka gadaal ayuu yidhi muusow waa lay kaa soo diray oo ma'muur ayaan ahay maxaa lagu soo amray buu dhahay inaan xayaatada kaa qaado markii sidaa uu yidhi nebi muuse hal dharbaaxsho ayuu u geliyey malakumowdka sida xadiiska uu tilmaamay ishiisana bannaanka ayay soo baxday malakumowdkii oo ishiisa gacanta ku wata ayuu ilaahay u tegay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi waxaad ii dirtay addoon aan dhimasho lahayn aan rabin ayaad ii dirtay oo sidaa ii yeelay waa la soo wanaajiyey waxkaasaa la yidhi orod u noqo muuse waxaad dhahdaa muusow gacantaada waxaad saartaa dibi in allaala intay gacantaadu qariso timaha dibigaa xabad xabad loo xisaabaa intaasoo kun oo sano ayaad adduunka ku noolaanaysaa sidaa ku dheh ayaa la yidhi nebi muuse arrintii ayaa loo sheegay sidii ayaa lagu yidhi markaasuu dhahay intaas hadday dhammaato waaba dhammaanaysaa waa ogahaye maxaa ka dambeeya markaasaa la yidhi geeri ileen geeri qofay dhaafaysa malehe haddiiba aan laisdhaafayn buu dhahay hadda xayaatada ha layga qaada laakiin ilaahayow waxaan kaa baryayaa ilaa baytulmaqdis aan u dhowaada inaad ii sugto intii ayaa loo sugay meeshii rabbi uu ka baryey marka uu gaaray ayaa xayaatada laga qaaday nebi muuse calayhi salaam rasuulku wuxuu yidhi wallaahi haddaan meeshaas joogi lahaa waa idin tusi lahaa qabriga uu nebi muuse ku duugan yahay calayhi salaam qisadu waa qiso in lagu cibro qaato loogu talagalay ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala inuu xaqana waafajiyo nagana dhiga dad diintiisa raacaa meesha ayaan kusoo gabagabaynaynaa qisadii nebi muuse calayhi salaam inta ka horaysana wabillaahi tawfiiq wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam